celinaya mahad celin aan la soo koobi karin soo dhaweynta aad noo samayseen oo markii koowaadna aad nagu samayseen garoonka markii labaadna halkan hadda aan joogno oo ah xafiiska gudoomiyaha degmada inta kadib waxaa mahad mudan maamulka madaxa golaha wasiirada galmudug Sheekh Maxamed Shaakir runtii gobolkan soo gaarsiiyay meesha hadda uu joogo oo ah inay haysataan waxa ugu fiican oo bini'aadamku u haysto oo ah nabad adduunka haddaan nabad la haysan maaragtay wax nolol oo jira ma jiraan markaan hadda soo soconay waxaan ku iri anigu uma baahni askari baabuur ila raaca mid iga daba mara iyo mid iga hormara intaba sababtoo waxaan joogaa meeshaan aaminsanahay inay tahay Soomaaliya meesha ugu ammaanka badan ammaanka mid waa iska yimaada midna dadka keensada midka ka jira halkan waa mid ay idinka keensateen oo taariikh ku gasheen oo cadow manaxa ah oo dhigyacaba oo Soomaalidu aanay malayn karin in la iska dhicin karo iyadoo la haysan ciidamo shisheeye ay iska dhiciseen oo waqtigooda halkan ku jiideen inta kadib walaalayaal aniga halkan waxaan u imid waxaan ahayn waqti ballaaran diyaaradii kale waxay ka degtay garoonka Ugaas Nuur ee Dhuusamareeb innagana waxaan nimid halkan Guraceel sababta aan Guraceel u nimid ujeedada la'aan ma ahayn waxay ahayd Guraceel inay tahay magaalada ganacsiga ee gobolada dhexe Soomaaliya magaalada ugu population ka badan magaalo ay joogaan dad firfircoon dad ilbax ah dad geesiyaal ah dad Soomaaliya taariikh ku leh marka inagu waxaan ahayn horudhac u ahayn waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku imaanayo Galmudug State runtii gobolkan muddo yar ka hor ninkii nabadoonkii hadda hadlay wuxuu yiri halkan dadka ka soo jeeda oo siyaasiyiinta dhamaantood waxay ku yihiin welcome waa sax laakiin abwaan yamyam wuxuu yiri timir ninkii talaaliyo timir ninkii abuuriya tiin ninkii talaalaba taariikhdu way tabin siyaasiyiinta gobolkan u dhalatay sida caadiga ah wax kasta waxay leeyihiin laba dhinac wanaag xumaan muxuu ahaa horumar dib u dhac nabad colaad marka gobolkan horumarkiisa qofkii ka taliya iyo qofkii dib u dhiciisa iyo dagaalkiisa ka taliya oo labaduba ay gobolkan ka soo jeedaan waxa warin doona taariikh diyaaradihii maanta halkan soo degay sidii hore u dhici jirtay ma aanay keenin hub idin kula dagaalo waxay idin keeneen maamul dhamaystiran oo milaysan oo la yiraahdo Galmudug oo madaxweyne uu ka yahay xaaf dabcan awoodii iyo muxuu ahay madaxii golaha iyo maamulkii iyo horumarintiisii iyo nabadeyntiisii iyo midayntiisiina oo madax ka yahay Sheekh Maxamed Cali Xasan Sheekh Shaakir waxa la idin ka rabaa waa aragteen madaxweynihii goboladii waddanku maraya inaad soo dhaweysaan inaad si sharaf leh oo sidii la idinku yaqaanay oo gobonimada ahaa oo martisoorka ahaa oo muxuu ahaa qiimaha lahaa oo la idinku yaqaano taariikhda ugu lahaydeen inaad u soo dhaweysaan baa la idinka doonayaa dabcan madaxweynuhu marti kuma aha gobolada dhexe hore uma dhicin taariikhda Soomaalida walow madaxweynuhu xamar ku dhashay madaxweynihii ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha muxuu ahaa kuraastii waaweyned ee dalka inay dhammaantood ka soo jeedaan gobolada dhexe ee Soomaaliya oo hore u dhacay ma aha taariikhdaas ayaa marka waxa la idinka rabaa inaad difaacataan dawladda oo aad wardiysataan oo aad ilaashataan waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto oo idin sheego dawladda maanta ka talisa villa Soomaaliya fadhisa ee haysa muxuu ahaa dawladnimada Soomaaliya waxaan rabaa inaan idin sheego oo ku faani kartaa waxba ka leedihiin lahaanshaheeda iyo milkiyadeeda walow dhammaantood ay yihiin reer gobolada dhexe haddana si gaar ah reer Guraceel haddaad tihiin waa sheegan kartaan dawladda sheegan kartaan way
marka waa maasantihiin aad iyo hadan kaga mahad celinayaa maaragtay soo dhaweyntiina waan isla joognaa waxaan tagi doonaa waftiga iman doona hal wafti oo madaxweynaha maaha waa 3 wafti oo soo kala horeeya innaga maanta waa nimid diyaaradaas ka degtay Dhuusamareeb iyo midan hadda halkan ka soo degtay Gurceel waxaa xigi doona wasiirka arrimaha gudaha injineer Sabriye oo isagana iman doona waxaa si xigi doona wafti kale oo ah madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo isaguna iman doona midda u dambaysa oo ah ugu ballaaran waa waftiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo iman doona marka waa maasantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa inaad maaragtay u diyaar garowdaan waftigan baaxadda leh ee idinku soo wajahan ee 3dan qaybood ee aan soo sheegay leh iyo inaad waardeysataan dawladdan ay reer Gurceel wax ku leeyihiin aadan kugu mahad celinayaa waxaan kala u mahad celinaa oo mahad celin aan la wadaagin aan u soo jeedinayaa Sheekh Maxamed Shaakir iyo maamulkiisa mahadnaq aan la wadaagin oo runtii waxa idin gaarsiiyay in la idin yimaado oo la idin yiraahdo Gurceel markaan tagno ilaalo uma baahnin oo la yiraahdo Gurceel madaxweynuhu yiraahdo meesha kali ah ee aan rabo gobolada dhexe inaan tago waa maamulka Sheekh Shaakir iyo raggii dhiigooda u soo horay meeshan way marka mahadnaq Allah sheegay waa maasantiin aad iyo aad u mahadcelinayaa